oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falaqaynta qodobadan ku soo qaadanayno waxaa ka mid a dagaal hadda la sheegay in uu ka dhex bilaabmay wadamada Israa'iil iyo markaasi Turkiga iyo Israa'iil hadda wacad ku martay in ay markaasi duqeyn doonto cagta marin doonto saldhigyada military ee Turkigu hadda ku leeyahay Soomaaliya iyo labada dal waxa hadda ay markaasi isku haystaan ama dagaalkooga sababay ayaan idin hayaa iyo dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo markaasi eedeymo xoogan u jeediyay oo markaasi aflagaada ah dhinaca iyo wadanka Israa'iil iyo dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ninkii danay oo hadda markaa xasan sheekh u soo dhigtay ciidamo la sheegay in ay dowladda fadhiidka ahi soo dirtay oo hadda 60 kilomitir u jira markaasi magaalada Boosaaso iyo dhinaca kale kooxii huwantii argagixisada ee Soolbari oo iyadana hadda la sheegay in ciidamo badan halkaasi uu ku soo daabulay horjooga dowladda fadhiidka ee xasan sheekh kaasi oo markaa la sheegay in ay weerar ku yihiin Puntland iyo Somaliland iyo dhinaca kale Somaliland iyo Puntland oo hadda iyaguna markaasi wacad ku maray oo qaaday tallaabo adag oo iskaashi ah kaasi oo laba abud lagu gelinayo kooxaha argagixisada ah ee Soolbari kuwaasi oo hadda ku noqday ammaanka geeska Afrika fardheeraatay waxaana haddaan idin hayaa xogihii ugu dambeeyay oo sheegaya kumanaanka ciidanka ah ee markaasi horjooga xasan sheekh uu ku soo gurayo dhinaca iyo Soolbari iyo sida oo kale dagaalka uu doonayo Somaliland iyo Puntland in uu markaasi ku qaado iyadoo hadda la sheegay inuu isleeyahay kala horreysiiso oo markaas sidii jiirkii uu midna afuufayo midna doonaya inuu birta ka aslo iyadoo oo markaa ra'iisul wasaaraha dowladda fadhiidka ah ee Soomaaliya uu sheegay in ay markaasi Puntland weerar ku yihiin laakiinse Somaliland iyo Puntland ayaa la sheegay hadda iyagu inay fahmeen shaxda taasi oo ah marka iyaga la soo cuno Puntland meesha lagu soo socdaana inay Somaliland tahay haddaba iskaashiga labada dowladood ee markaasi Somaliland iyo Puntland ay leeyihiin ayaan eegi doonaa iyo sida oo kale xiisadda hadda ka soo cusboonaatay markaasi dhex maraysa Israa'iil iyo markaa Turkiga oo sida oo kale ku qotanta aqoonsigii ay Israa'iil siisay Somaliland taasi oo Turkigu mariyo tuur yahay iyo Israa'iil hadda jawaab rasmi ah siinaysa ayaan idin hayaa dagaalka oo markaa dagaalkii Iiraan oo la sheegay hadda in geeska Afrika iyo sida oo kale bariga dhexe qaybtiisa Turkiga ugu wareegi doono oo markaa dagaalka Iiraan inuu isku bedelo dagaal u dhaxeeya Israa'iil iyo Turkiga ayaa hadda la sheegaya qodobada iyo qodobo kale ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhawaada waa hagaag aan ku bilowno barnaamijka waxaa hadda TV-ga afka carabiga ku hadlay ee ay qadar leedahay ee Al Jazeera iyo qaybtiisa Ingiriiskuba ka hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee markaasi dalkaasi Turkiga ninka la yiraahdo Hakan Fidan kaasi oo markaa hadda sheegay in dagaalkii Iiraan uu gabagaboobay laakiinse Israa'iil buu yiri aanay cadow la'aan joogi karayn waxaana hadda markaasi u soo jeesanaysaa buu yiri Turkiga Hakan Fidan ayaa hadalkiisan waxa uu ku sheegay markaasi in hadda ay foodo istari doonaan oo dagaal dhex mari doono Turkiga iyo markaasi dalkaasi Israa'iil haddaba waa maxay sababaha ugu waaweyn hadda keenaya markaasi in labadan dal ay markaa madaxa istaraan waxaa la sheegayaa hadda xogihii ugu dambeeyayna shaaca ka qaadeen in labada dal ay biyo hoostooda iska arkeen oo baryahaba gool aftan weyn uu ka dhaxeeyay iyadoo markaa in ognahay in ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil markaasi uu shaaca ka qaaday intaanu dagaalkan Iiraan bilaabmin oo uu yiri waxa ka xun Iiraan buu yiri oo markaasi kaga khatar badan amniga Israa'iil dalkaasi Turkiga sidaa darteed wuxuu ugu baaqay waqtigaasi in Netanyahu cagta mariyo markaa Turkiga oo ka xun yahay isagu haddana isku diyaarinayo sidii markaasi Turkigu uu u baabiin lahaa buu yiri Israa'iil sidaa darteed in amniga Israa'iil ay ku xidhan tahay sidii cagta loo mari lahaa Turkiga ay daruuri tahay ayuu ra'iisul wasaaraha hore u sheegay haddaba waxaa hadda la sheegayaa in ay tahay maalmaha ama daqiiqadaha iyo moogtay saacadaha soo socda
dagaal xooggan oo Turkiga iyo Israa'iil dhexmara in uu markaasi bilaabmi doono waxaana khubarada militarigu ay sheegayaan in hadda labada dalba ay diyaar yihiin sida oo kale waxa hadda iyadana jirta in ay Turkigu bariyahaasiba mugta aqoonsiga Somaliland Israa'iil siisay oo aad u dhaleecaynayay oo uga soo horjeeday oo markaasi hadda waliba isku dayayo in uu xoog ku qabsado jamhuuriyadda Somaliland markiisii hore waxaad ogaataa Turkigu wuxuu doonayay xeebaha jamhuuriyadda Somaliland iyo magtay dhulka shidaalka kheyraadku ka buuxo in uu xoog ku qabsado warqad yar oo macmala ayuu watay oo yiri Xasan Sheekh baa soo saxeexay oo markaasi wuxuu yiri Somaliland Xasan Sheekh baa u taliyay buu yiri sababta markaasi hadda dagaalka uu Somaliland kula jiro Turkigu bilaabayna waxa weeyaan iimaanlihii 99% waa heshiisan xitaa caalamka ka dhicin ayaa moogtay loo saxeexay oo Xasan Sheekh uu saxeexay inuu batroolkii kheyraadka gurto 5% uu marka Xasan Sheekh xaqooqalan u siiyo marka Xasan Sheekh waxa weeyaan ninkaas ka bayhoofkeen wadana lahayn oo meel walba xaraashaya laakiin se meeshu ka samri lahayd Turkigu ayaa waxay tahay buqcadaha istiraatiijiga iyo shidaalka iyo macdanta Somaliland ka buuxda oo warqad daayire macmalka ah ee markaasi uu jeebka ku sito ayuu isla ku qabso dagaal buu isku soo diyaariyay waxaad ogtahay markabkii hubka badan sidee Puntland qabatay in markaasi xeebahaasi laas qoray George isla halka ka soo weerar Somaliland dhinaca Sanaag waati markay Puntland qabatay kadibna la sii daayay dhinacan mud fogaanba Djibouti buu joogaa xiisada galbeedka Somaliland ka socotana Turkiga ka mas'uul ah oo waxaynu ognahay in Nimcaan Laac iyo Suldaan Wabar uu soo urursaday safiirka Turkigu isagoo markaasi ugu goodinayay Somaliland inuu baabinayo oo dagaal galbeedka ka furayo mabuuq qarsanba Erdogan ilaa Ethiopia isagoo mariyo tuurada waa ka yimid kadib markii aqoonsiga Israa'iil siisay Somaliland hadda waxay ogataa dagaalkii weynaa Turkigu doonayay Somaliland ku qabsado waxa dabada dhulka ugu dhafatay markii aqoonsiga Israa'iil ay Somaliland ku dhawaaqday taasi oo mariyo tuur uu noqday oo uu qaadan waayay haddaba waxa hadda jirta in colaada labada dal ay Israa'iil iyo marka Turkigu waxyaabaha hadda isku haystaan sidoo kale aqoonsiga Somaliland ay kow ka tahay haddaba waxa jirta in saldhigyo weyn uu ka samaystay Turkiga oo kale dhinaca iyo dawladda fadhiidka dhulka maamusho shabeelooyinka halkaas oo dayax gacmeed ka dhoofis leeyahay satellite-ka iyo gantaalaha ballastikada uu doonayo inuu ku tijaabiyo dadka hadda Soomaaliya aan cidna lahayn ceelno ma maqna ceelno ma qodno oo suntii kala soo fogaaday dalkiisa ayuu halka ku tijaabinaya وحسن الشيخ بو ogolaaday hadaba gantaalahaasi plastikada ayaa waxa Israa'iil sidoo kale ay u aragtay cidda uu sameysanayo Turkigu in iyada tahay waxaana hadda la sheegayaa in khubarada moogtay dhinaca sida wariyaal badan iyo khubaro badan ay sheegayaan oo bidhaan ay ka mid yihiin waxa la filayaa in markaas saldhigyadaasi uu ku leeyahay Turkigu Soomaaliya in Israa'iil cagta marin doonto saacadaha soo socda oo markaas gebigiisa dambaska ka dhigi doonto si kasta waxa hadda la sheegayaa sidoo oo kale in ay dawladda fadhiidka oo dabada ka turbaaninayo Turkigu ay weerar xoogan hadda ku soo qaadayso Puntland waliba waxa hadda muuqaal ay soo duubeen sheegayaan inay boosaaso 60 kiiloomitir buu soo jiraan sidoo kale qolihii banqiga ma fadhiyay ayaa la sheegayaa in hub iyo ciidan badan laascaanood lagu soo guray oo markaas dawladda fadhiidka Soomaaliya halka keentay waxaana hadda la sheegayaa marka in ay ugu tala galeen in ay marka hore labada dal ee markaas Puntland iyo Somaliland kolba kii ay horeysiisanayaan Puntland xogaatay imika dal ay ku dhawaaqday maalin dhow ay ku dhawaaqaysaa iyaduna sida Somaliland oo kale maadaama ay ninkaasi Xasan Sheekh sheeganaya uu mariyo tuurad yahay oo Turkiga iyo Masaari u soo kaxaysanayo moogtay Puntland cagta maris leeyahay haddaba dagaalka Puntland lagu soo qaadayo sidoo kale waxay hore uga soo tashaday Somaliland iyo Puntland iyo Somaliland u aragtay amnigeeda inay ka difaacan doonto oo buffer zone ka dhigi doonto Puntland kaasi oo laga yaabo in markaas ciidamada qaranka loo dhaqaajiyo si ay u garab istaagaan markaas Puntland qoliyaha daba banqiga ma fadhiyo dhex fadhiga ayaa in laba abud la galiyo sidoo kale hadda go'aan ay ku gaareen Puntland iyo Somaliland ba ayaa la leeyahay wixii faahfaahina wayna barnaamijyada dambe nabadgelyo